sanad kasta waxaan isku daynaa inaan samayno qorshe cusub oo sanadkii hore ka duwan qorshaha oo aan wax kaga bedelayno nolosheena tusaale ahaan in qofku uu salaad bilaabo in uu sunno intii hore ka badan tukado in uu ganacsi furto in uu xirfad cusub barto iyo wixii la mid ah inta badan ujeedada aan leenahay ma gaadho. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أد بني كسر دوينيا قال كان عصب أنت وحن شعرنا كشيكينو حبكي يا لو جارا جوشة هذيك أو دبعت فرق بدن أنكل كل مي نكان نقوني صدقا حاجة عاد يسبدل هالمركليات هو إنك جار لهي يسبدل يرير أود جاردو أيا وحي كان يسا إن أد جوشة جاردو. xulka baaskiilka ee Ingiriiska ayaa waxa loo soo magacaabay oo bar cusub oo magaciisu yahay Dave Brailsford. xulkan waa xul aanan ku guuleysan bilad oo biladii ugu dambeysay ay qaaday 1908. waa xul uu qof Ingiriis ah oo kamid ah ku guuleysan wareegga Faransiiska ee baaskiilka. xulkaas oo shirkadii kamid ah shirkadihii baaskiilka sameeynayay ee u diiday inay ka iibiso baaskiiladeeda iyaga oo ka baqaya in iibinta baaskiilada ay iibinayaan ay hoos uga dhacdo. xulkaas ayaa loo magacaabay waxaana lagu yiri xulka wanaad meel soo gaarsiisa. waxa uu aaminsanaa waxa loo yaqaano the aggregation of marginal gains. waxana weeyaan isku geynta faa'iidooyinka ee yaryar ama hoose. waxana weeyaan in shay walba oo qabanayso aad u jajabiso waxa ugu yar aad ku fikiri karto mid kastana aad wanaajiso boqolkiiba 1 muddo 5 sano ah waxay isku dayeen inay wanaajiyaan wax walba oo baaskiilka kamid ah. kuraasta bay ka bilaabeen hagaajiyeen makhadadihii bay kala bedeleen oo kuwii ugu raaxda badnaa bay qaateen hurdada si fiican ugu seexanay baskii bay cadaan ka dhigeen dihiisa si ay u arkaan dhaska u yar. waxay isticmaaleen dawooyin kala duwan oo ku eegayaan keeba murqaha inay hor u daweyso fiican markay dhaawacmaan. waxaa loo xiray dharar kala duwan si loo ogaado kuweeba hawada aan qabanin. waxaa loo xiray saraawiil gaaban oo electric ku shaqeynaya oo diirinaya murqahooga marka ay ku jiraan marathonka ama ay tartamayaan. 5 sano ayaa ka soo wareegtay 2008 Olombiyadii lagu qabtay Beijing. waxay ku guuleysteen biladihii loogu talagalay 60%. 2012 Olombiyaadkii lagu qabtay Ingiriiska waxa ay ku guuleysteen dhammaan biladihii loogu talagalay ama ay ku guuleysan kareen. waxa ay sameeyeen inay jabiyeen 9 record oo Olombiya ayna kamid yihiin 7 record oo caalamiya. Faransiiska aan niri wareegii Faransiiska ee qarni in ka badan ayna ku guuleysan way ku guuleysteen waxayna ku guuleysteen 5 sano oo xiriir ah muddo 10 sano 2007 ilaa 2017 waxa ay gaareen ama ay ku guuleysteen 66 biladood oo Olombiya iyo 170 in ka badan biladood oo kale way ku guuleysteen. waxaan uga dan leeyahay waxay ku qaadatay 5 sano in ay isbedelaan iyaga oo ka bilaabay wax walba oo qabanayeen oo jijabiyeen oo yareeyeen si ay guusha hore ugu gaaraan. marka adigu maanta ay daawanaya si aad guusha u gaadho waxaad u baahan tahay wax walba oo qabanayso in aad jijabiso mid kastiba aad wanaajiso boqolkiiba hal oo la isku geeyno marka dambe waxa isla tagaysaa wax wixii hore ka badan guushiina way soo dhaweynaysaa wayna ka fududahay qaabkii hore. sheekada iyo nuxurka muuqaalku wato waxa ay u dhaliyay in aan akhriyo buugga magaciisa la yiraahdo The Atomic Habits aan jecelahay inaad akhridaan. maanta intaasaan jecelahay inaan idinla wadaago. aad bad mahadsantihiin waqtigiina aan la qiyaasi karin qiimaha inta uu leeyahay horteen. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.